بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Bio Academy. halkan nagala socotaan waa page kan ku leenahay Facebook ee Bio Academy iyo YouTube channel kan ku leenahay sidoo kale ee Bio Academy. waad ku mahadsantihiin daawashadiina iyo la socodka barnaamijyadeena. waxaan filayaa inaad ka faa'iideysan doontaan haddii Allah insha Allah taala. maantana waa maalin kale iyo maadada xisaabta. waxaynu qaadan doonaa insha Allah taala maadada xisaabta fasalka 12aad. manhajka wasaaradda waxbarashada hidaayada iyo tacliinta sare. muqarrarka wuxuu ka kooban yahay 7 jabtar. jabtarkan ugu horeeyo haddii Allah insha Allah taala wuxuu noqon doonaa trigonometry oo ah jabtarka ugu dheer buugga. jabtarkan trigonometry-ga intaan cashirka gudagalin ka hor waxaan rabnaa inaan ka bixino introduction yar oo ku saabsan basic trigonometry. isla socon haddii Allah insha Allah taala jabtarka wuxuu ka kooban yahay dhowr ciwaan. waxa ugu horeeyo compound angle, double angle ku xigo, half angle formula, trigonometric equations, finding area using trigonometry. iyo waxa ka koobnaa doona insha Allah taala wax loo yaqaano midaalada trigonometriga ama wax loo yaqaano trigonometric identities. bal aan aragno introduction-ka ama hordhaca jabtarkan trigonometric aan isla aragno marka. question kama su'aasha ugu horeysa mar walba isweydiinayso waxay tahay what's trigonometry? waa maxay trigonometry? maanta dhan waxa ku weerarey waxa loo yaqaan sin, cos, cosine, tan, something like that. muxuu yahay horta trigonometry? Trigonometry is one of the most important branches. waa mid kamid ah laamaha ugu muhiimsan in mathematics iyo xisaabta that find taasoo maxaa la soo raadisa ama hesho who applications isticmaal badan in diverse fields meelo kala duwan. waa laan ka tirsan xisaabta taasoo meelo badan loo adeegsado. the branch called branchiga lagu magacaabo trigonometry-ga lagu magacaabo basically deals inta badan ba wuxuu la xiriiraa ama si hoose wuxuu la xiriiraa with the study of barashada. maxaa la baranaa? the relationship between xiriirka ka dhaxeeyo the sides dhinacyada and angles xaglaha of right angle triangle ee saddex xagal quman. saddex xagalada waxaa loo qaybiyaa dhowr nooc. mid kamid ah jiro loo yaqaano right angle triangle. saddex xagal quman mid loo yaqaan jiro waa saddex xagal saddexdiisa xaglood mid kamid ay tahay 90 degree. hence it is helps to find maadaama uu naga caawinayo trigonometry inaan soo raadino the missing or the unknown angles xaglaha maqan ama sides dhinacyada maqan. maadaama uu naga caawinayo right angle triangle saddex xagal quman xagashiisa oo maqan ama dhinackiisa oo maqan inaan soo helno maadaama uu naga caawinayo using waxaa la isticmaali doonaa trigonometric formulo ama jidad loo yaqaano jidadka trigonometriga ama waxaa isticmaali doonaa wax loo yaqaano functions fansaaro loo yaqaano fansaarada trigonometriga ama waxaa isticmaali doonaa wax loo yaqaano trigonometric identities midaalada trigonometriga. in trigonometry markii la joogo marka the angles can be either measured waxaa lagu cabiri doonaa labadan mid kamid ah. in lagu cabiro degree in lagu cabiro or ama lagu cabiro radians. waa laba halbeeg oo loo kala adeegsado in lagu cabiro. radianka inta badan waxaa lagu arkaa inuu yahay pi over 2, pi over 3, pi over 4, something like that. degree-gana waa kana 0 degree iyo wixii lamid ah. some of the most commonly used qaar kamid ah kuwa ugu caansan ee trigonometry-ga la isticmaalo waa kuwana xaglaha ugu badan la isticmaalo kuwan waay 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree. meel ku qoran kuwan waxaa loo yaqaanaa special angles aa loo yaqaanaa. let's see aragna marka trigonometry. eraygan waa eray aad u weyn oo baaxad weyn oo muqaacad ah isa saaran xitaa kelmad ahaan ku dhawaqiisa wuu dheer yahay. eraygan marka trigonometry-ga sida maadooyinka kale ee sayniska oo kale loogu tiiriyo dhammaantood inay yihiin eraya Greek ah isna waxaa loo tiiriyaa Greek oo kale. the word trigonometry eraygan trigonometry-gu comes from wuxuu ka yimaadaa the Greek words. laba eray oo Greek waxayna kala yihiin trigon iyo metron ay kala yihiin. trigon macnaheedu maxaa marka? triangle saddex xagal waay. metron maxaa waay? to measure in la cabiro. warkaan isku qabo marka triangle iyo to measure isku qabo waxaa waay marka measurement of triangle waa cabirida saddex xagalada. measurement of triangle waa cabirida saddex xagalada. haddii lagu weydiiyo marka what's trigonometry simple waxaa ku jawaabi kartaa is a measurement of triangle waa cabirida saddex xagalada ku jawaabi kartaa.
In this lesson cashika marka joogno marka waxaynu inta badan ka doodi doonaa ama falanqeyn doonaa wax loo yaqaan 6 important trigonometric functions fansaarada lixda ah ee trigonometry uu leeyahay saamiyada oo sidoo kale iyana loo yaqaano trigonometric ratios saamiyada trigonometriga iyo waxa baran doonaa teebalo la xiriiro trigonometriga waxaan baran doonaa sidoo kale formulas iyo identities midaalo iyo jidad lagu soo saaro missing sides dhinacyada maqan ama missing angles xaglaha maqan which helps kuwaasoo naga caawinaya to find a suradino the missing angle xagasha maqan oo sides ama dhinacyada maqan of right angle triangle saddex xagalka quman dhinaciisa oo maqan ama xagaltiisa oo maqan jidkii ama maxaa la midaashii aan ku soo saari lahayn ama saamigii aan isticmaali lahayn ya halkan ku baran doonaa du'aaleed insha Allah ta'ala marka trigonometric ratios saamiyada trigonometric ratios saamiyada trigonometriga the trigonometric ratios saamiyada trigonometriga of triangle are also called as sadexagalku leeyahay sidoo kale waxa loo yaqaan trigonometric functions fansaarada trigonometricna waa loo yaqaan maxay kala yihiin sine cosine tangent waa sine cosine iyo tangent saddex kala jirto oo ku hoos qarsan maxaa loo yaqaan ayagana cosecant secant iyo cotangent loo yaqaan sine cosine tangent cosecant secant iyo cotangent waa lixdaas fansaar ama lixdaas saami iyo trigonometry inta badan isticmaalaa waxaan arki doontaa sine cos tan cot cosec iyo sec lixdaas arki doontaa du'aaleed insha Allah ta'ala three important trigonometric functions waa saddexda fansaar ee ugu muhiimsan inta badan la isticmaalo xitaa bugta qaar waxay dhahaan sine coska ugu muhiimsan xitaa tanka waa la soo saari karaa haddii sine cos la haysto marka labada asaasiga ama basic waxay noqon doonaa mar walba sine cosine noqon doonaan inta kale marka waxaa lagu heli doonaa reciprocal ama derivative waxaa lagu heli doonaa dherin ama waxaa lagu heli doonaa waxa loo yaqaano reciprocal rogal labadaas mid lagu heli doonaa cotangent waxaa lagu helaa rogaalka tangent cosecant waxaa lagu helaa rogaalka sine secant waxaa lagu helaa rogaalka cosine tangent naftirkeeda waxaa lagu helaa ratio-ga sine iyo cos la isku qaybiyo abataan lamid ah an abbreviated waxaa loo soo gaabshaa sine waxaa loo soo gaabshaa sine cosine waxaa loo soo gaabshaa cos tangent waxaa loo soo gaabshaa tan let's see an aragna marka how these ratios and functions evaluated sidee kuwan loo qiimeeyaa in case of iyadoo la joogo right angle triangle saddex xagal quman iyadoo la joogo sawirkan meeshan ka muuqdo waxay noo qoran saddex xagal triangle noo qoran triangle kan wuxuu leeyahay saddex xaglood tan waa xagal tanna waa xagal kale tanna waa xagal kale saddex xaglood waay hadaayo markaa soo sheegayna waxa dhahnay saddex xagal xaglihiisa mid kamid ah ay quman tahay yu ka hadlaaba trigonometry wax loo yaqaan saddex xagalkan xaglihiisa mid kamid ah ma quman tahay ha iyo may waxa dhigi karnaa markaan naqaano xagal quman maxaa la horto xagal quman goormay samaysantaa xagal quman waxay samaysantaa two lines oo perpendicular ah markay isaabtaan laba xariiq markay si qoton ah isku taabtaan xariiqdan fiiri way socotay xariiq kale socoto jiifta ku imaaday perpendicular oo isku qotomaan labadan Soomaan laba xariiqood markay isku qotomaan xagasha ka sameysanta waxa loo yaqaanaa right angle xagal qumana loo yaqaanaa waana 90 degree constant waa isma bedesho waa 90 degree labadan soo haray wadartooda meeqa markii 90 degree labadan soo hartay meeqa laga rabaa inay ahaadaan 90 degree laga rabaa marka balan soo saarno marka lixdii fansaar ee sine iyo cosine iyo tangent iyo cotangent iyo cosecant iyo secant aha lixdooda soo saarno marka halkan joogno marka saddexalkan saddexdiisa dhinaca kala barano xariiqdan ugu dheer xariiqaha waxa loo yaqaanaa hypotenuse shakaala loo yaqaanaa Soomaali hypotenuse shakaalna waxa la dhahaa qaansada ama waxa loo yaqaanaa falaarta xariga labada ul isku xira waxa loo yaqaanaa shakaal xarigaas oo kale u eegaya kan waxa loo yaqaanaa markaas wuxuu isku xiraa labadan xariiqood oo tan taagan iyo xariiqdan jiifto xariiqda isku xirta waxa loo yaqaanaa hypotenuse shakaala loo yaqaanaa marka xagashana calaamaysan tiita ee nagu qoran tahay dhinaca ka soo horjeeda waxa loo yaqaanaa opposite hay xariiqdan calaamaysan tiitada maxaa la xagashana calaamaysan oo tiita nagu qoran xariiqda ay ku taagan tahay maxaa loo yaqaanaa adjacent diris loo yaqaanaa ka soo horjeed iyo diris iyo shakaal saddex isticmaali doona marka consider aan tixgelino
a right angle triangle saddex xagliisa mid kamid ay quman tahay where the longest side dhinaca ugu dheer muxuu noqon doonaa hypotenuse shakaal noqon doonaa and the side opposite dhinaca ka soo horjeedana hypotenuse shakaalka dhinaca ka soo horjeedo laba midood noqon doonaa haddii inta la degan yahay muxuu noqon doonaa adjacent haddii xagashan tiita lagu qorno muxuu noqon doonaa asaa muxuu noqon doonaa opposite-ki hadba waxay ku xiran tahay marka xagasha la degan yahay adjacent-iga opposite-ku way isbedbedelaan laakiin hypotenuse-ka marnaba isbedelo waa longest side dhinaca ugu dheer waay marka Pythagorean theorem markii la joogana this side waxa loo yaqaanaa a labadana b e c way isbedeli karaan macnaheedu waxa marka a square waxay la mid tahay b square plus c square b e c way isbedeli karaan laakiin maxaa waay side-kan hypotenuse-ka constant way oo isma bedeli karo mar walba dhinaca ugu dheer ay hypotenuse-ka ma shakaalka noqon doono trigonometric functions markii la joogo lixdii aan soo qaadano ahaa sin iyo tan iyo cos iyo cosec iyo sec iyo cot see loo helaa fiiri marka tiita markii halkaa noo tahay sin waxaa lagu helaa opposite loo qaybiyey hypotenuse opposite loo qaybiyey hypotenuse waa kana fiiri sin waxaa lagu helaa opposite loo qaybiyey hypotenuse haye cos waxaa lagu helaa waa cos waxaa lagu helaa adjacent loo qaybiyey hypotenuse adjacent oo loo qaybiyey hypotenuse awe waa kana cos waxaa lagu helaa adjacent oo loo qaybiyey hypotenuse haddaaya waxaa ku dhahay tan waxaa kusoo saari kartaa si derivative oo sin loo qaybiyey cos aa kusoo saari kartaa sin loo qaybiyey cos aa kusoo saari kartaa sin waxaa hooseeya waa hypotenuse cosne hypotenuse labada hoose isla wixii maxaa soo haray opposite loo qaybiyey adjacent soo hari doono ama inta markaa taagan tahay tiita halkan ay ku tahay tan maxaa lagu helaa opposite kan oo loo qaybiyey adjacent lagu helaa cosec iyo sec iyo cot maxaa ku heli doontaa reciprocal wax loo yaqaan ama rogaal ku heli doontaa cosec maxay ka bilaabataa c waxay lid ku tahay sin oo iska bilaabato waa rogaalka sin one of a sin lagu heli doonaa marka sec maxay ka bilaabataa s waxay rogaal ku tahay cos one of a cos lagu heli doonaa cotne waxay rogaal ku tahay tan one of a tan lagu heli doonaa idan insha Allah taala trigonometric angles xaglaha trigonometriga marka the trigonometric angles xaglaha trigonometriga which are commonly used kuwa oo inta badan la isticmaalo haday soo sheegnay kan mar labada soo celinay waa 0 degree 30 degree 45 degree 60 degree 90 degree iyo sidoo kale kuwa kale oo waxa jiro special angles loo yaqaan waxaana kamid ah 180 degree 270 degree 360 degree sin iyo cosine iyo tangent inta badan maxaa baay kuwa ugu caansan la isticmaalo iyagana basic ah kuwa kalena waxa loo yaqaan reciprocal loo yaqaan rogaala loo yaqaan marka waa kana soo fiir marka sawirkan si fiican u muuqda laakiin trigonometric values qiimaha ay kala leeyihiin haddii sin ay tahay 0 degree meeqa la mid tahay half haye sin soddon sin 0 waa 0 sin 30 waa half sin 45 waa radical 2 over 2 sin 60 waa radical 3 over 3 2 sin 19 waxa waay 1 meel ka fiican tahay ku sheega marka meel ka fiican tahay jirabo waxa jirta qaab lagu soo saarto hadduu Allah insha Allah taala 10 xigo maadaama calculation aan galayno 10kaas baran doona insha Allah taala table kan waxba memorizing kiisa ama xifdiskiisa haba ku daalinbo si fudud oo automatic ku soo saaran karto yaa baran doona hadduu Allah insha Allah taala unit circle waxa jiri doona marka wax loo yaqaan unit circle waxa la radius ka hadii uu yahay 1 gacanka goobo marka uu yahay 1 waxa loo yaqaan goobada waxa loo yaqaan marka inay tahay unit circle the concept of unit circle helps us waxay naga caawinaysaa to measure inaan cabirno the angles of cos sin and tan inaan cabirno xaglaha cos iyo sin iyo tan directly maxaa la toosa since maadaama the center of the circle is located xudunta goobadu ay ku taalo origin 0 ay ku taalo and radius gacankuna uu yahay 1 soo fiir marka waa kana origin ka ama center ka goobada meeqa waay waa 0 waay radius ka gacanka goobada wuxuu leeyahay 1 kan waxa loo yaqaan markaas first quadrant rubaca koowaad ama waaxda koowaad loo yaqaan second quadrant waaxda labaad third quadrant waaxda saddexaad fourth quadrant waaxda afraad qaybtan waxa ku qorataa all sin iyo cos iyo tan intooduba waa positive inta markii la joogo all ku qora marka
انت markii la joogo sign ku qoro sign bis a positive ah labada soo harta maxaa waay negative waay cos iyo tan waa negative inta markii la joogana tan ku qoro maxaa ka soo haray sin iyo cos labada maxaa waay negative waay inta markii la joogana cos ku qoro maxaa soo haray sin iyo tan negative waay mar walba mid ku qorata positive inta positive all positive waay inta positive sin bis inta positive tan bis inta positive cos bis هذا ما سنتين إن كومنتي قيبت عشرة قيد أنت حكتوا هادو على إن شاء الله تعالى وجود بدونا calculation كي يجينا بلابنا بوجا فصل كلابيتمنات هذا ما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصود بيننا وحي كومنتي أرضي بانها يو افتنكي أروريانها يو